بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سيروا كوب النصرين والريال وحايروا بالنصران ونلجوا إلى يمين وقتنا فردية جمال عثمان رجعنا دورنا متكملة إن شاء الله تعالى. إننا مرمرك قارك الله كل النوضات كانوا دورنا وعلى مرمى جماعة دمنا إن شاء الله تعالى وح نوبل نصن محمود نور وإسنا إن شاء الله تعالى إيمان دورة إن ما رتور بحين لك الهلا يمشي وحي لقبته إيوه وحي لوب بحين لقبته والله مرمى قفنا دورنا وصف قلتنا ولا في عين marka jamaal warbixin ka bari soo doona insha Allah taala hakaro martiqaado oo joogana waa jiraan oo xaafadda iyaguna hooba ka qabta marka warbixintiisa markuu dhameeyo oo walaalahaas kale hadlaan su'aalaha insha Allah taala wadiin furaynaa laakiin waxaan ka codsanaynaa si habeen dhexdaas su'aalo waa dheeraayeen yani su'aalo wareejinayeen su'aalo muhiim ah oo bulshada guud ahaaneed muhiim u ah deegaanka guud ahaan muhiim u ah oo aan dhaadheerayn insha Allah taala wajino والله ما إن شاء الله تعالى وحي ودنا قارة يعني سجارة ربما معرفة سؤال وديا سؤال كوسابسان يعني قفكة إن شاء الله تعالى جمال قارب ولا كل دورة لكن سؤاله ودينا وسؤاله جود الدجاج كحافظنا نمانته واحترام إن شاء الله تعالى مكة سؤال وجواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال وين السلامي وحان هذا العليا معمول كمسجد ك oo mar walba jecel community-ga hormariyo annagana halkaan ugu martiqaaday caawa wax yar baan mawduuca badankooda ma soo jeedi karo waxyaalaha badan oo shaqada badan oo ka socoto iyo baahida badan oo xaafadeena ka jirta wax yar baan ka taataabanayaa marka shalay waa la socotay tragedy weyn baa dhacday police Minneapolis ah oo aad iyo aad loo jeclaa department-guna jecleed oo dhaho Jamal Mitchell ayaa lagu toogtay Minneapolis reerkiisa condolence baan siinaynaa dad kaleetana 3 qof baa ku dhimatay 3na way ku dhaawacmatay wax ilaa hadda official ah oo dawladda ka soo baxay ma jiro magacyada waxaa la release garay doonaa Mondayda laakiin medical examiner-ka maanta dadkii dhintay oo ku geeriyooday wiil walaalkeena Soomaaliya ayaa ku jiray ilaahay waxaan uga baranaynaa marka hore inuu u dambi dhaafo reerkiisana sabir iyo iimaan ka siiyo tragedy-gaas waa tragedy aad u falxun shalay dhan iyo xalay dhan magaalada sidii u galgalsaneed oo dhacdo aad u falxun waay halkaan mar raba inaan kusoo dheeraado laakiin halkaasaan ka sii qaadayaa Somali community hadaan nahay dalkan waa dalkeena waa dalkan joogno dhib badan ayaa community-gana soo waftaa ha ahaato familada ha ahaato dhalinyarada xaafadana deganahay sida Riverside 3 sano iyo bar ayaan meeshaan fadhiyaa aan ka shaqeynayay dhibaato badan ayaan la kulanay wax badan ayaan ka qabanay rally hada of course Oromo community-ga na way ku jirtaa marka walaalayaal waxyaalaha raba inaan taabto waxa waaye marka hore baahida ka bacdi baan ka sheekeynaynaa waxyaalaha aan qabanay baahi badan ayaan ku aragnay 2020 ilaa covid uu dhacay halkan xoog marka waxaan saarayaa nabadgelyada iyo dhalinyarada nabadgelyada marka hore hadaan magaalada City Minneapolis mas'uul baa naga saaran waxyaalaha government-ga dawladda ay ka saaran tahay waxa waaye dadka xaafadan degan oo area-dan degan ama Minneapolis degan ba nabadgelyada sugno in nabadgelyo ku galaan gurigooda uga soo baxaan business-yaduna ay shaqeeyaan masjidkana aadi kartaa oo aan dib lagu gaarsiisan arinta xoog badan ayaan saarnay dib badan ayaa ka jiray of course booliiska oo aad u yaraaday laakiin bilbadan dhaadheer oo George Sherman leeyahay skuurad ayaan keenay oo dhalinyarada oo dadka dhibaatada qabanayay garaasha dhacay wax ka qabtay kaamirooyinkana waan dhignaa booliiska lama heli karo oo 911 ay ku mashquulsan yihiin laakiin marka helno waan u yeernaa
xaafadana way ku jiraan waxa way ka qabtaan kuwa xataa dharcada ayaa dadka badanaa dhibka gaarsiista wax ka qabtay programyo City Minneapolis xaafadan aysan lahayn ayaan keenay oo ka mid tahay dhalinyaro 14 ah oo aragteen meelaha wareega oo haweeney rag isugu jira oo dhalinyaro oranjiga qaba shaatiga oranjiga qaba dhalinyarada barbaska u keenay waxa waaye inay dhalinyarada kala hadlaan oo meelaha taagtaagan oo dhibku haysto ay u tagaan ay dhahaan walaal maxaan ku qabanaa guri geeyaan cunto geeyaan shaqo la raadiyaan intuusa crime-ka iyo dhibka uusan gelinna ka hortagaan programkaas program City Minneapolis ay downtown-ka iyo North Minneapolis ay keeni jirtay waaye markaan u dirnay waa ku guuleysanay labadii sano u dambeeyay wax badan ayaa laga dareemay sanadkeeda soo dhaafay October ayaa programkan la ka joojiyay October ilaa March oo sanadkan ayuu go'naa oo dhinaca siyaasadda dhinaca duqa magaalada uu hakiyay waan ku dadaalnay waana soo celinay laakiin say u ogtahay marna problemku waa yaraanaya marna wuu tagayaa marka reality-ga aan ka hadalno dhibka meesha haysto dhibka taagan cid kale kama imaan annagu ayuu naga yimid Somali community dhalinyaradana dhib badan ayaa haysta oo arrintan maandooriyaha ay dhahaan waa xanuun qofka markuu xanuunsan yahay ama cancer qabo ama malaria qabo waxba qabo gacan baa siina maxaan community-ga gacan u sii weyn dhalinyaradan xanuun baas baa haya oo dhinacaas uga yimid oo culture shock ha noqdo ama ha noqdo waaridkii oo mataqaana guriga ka maqan ama ha noqoto xaaladii criminalku ay ayagu aan shaqo heli karin dhalinyaradan wax badan ayay qabatay dhalinyarada oranjiga qaba wiilka maamulana Cabdiraxmaan waan ka soo istaajin doonaa halkaas intuu naga maqnaana aad bay u soo bateen dhalinyaradii oo karanka u soo batay ana markii hore mas'uuliyadda iga saaran number 1 waa nabadgelyada qof walba ka bacdi maxaa caawin karnaa community-ga waxaan marka u soo jeedinayaa oo aan ka hadlayaan jecelahay dhibkan jira dawladda bas uma yaalo idinku inay yaala dad badan ayaa mashaadkan ku tukada ma naga mid yahay dad taga oo dhalinyarada la hadla maanta oo gabdhaheeni iyo wiilasheeni oo dayacan la hadlo soo dhaweeyay dhalinyaradan lama cayri karo booliisna uma isticmaali karno 24/7 camera uma isticmaali karno security uma isticmaali karno waa dhalinyaro community kamid ah dhalinyaro community jooga marka anagu wixii dawladda aan ugu soo dhicin xaq u lahaayeen waa u keenay laakiin waxaan jecelnahay idinkuna garab inaan naga siisiin oo especially masjidka dadka ku tukada aabaha hadda carruurtaada guriga ku joogta carruurtaas kale tan aabaad u tahay sabab soco businessyada meesha taagan oo businessyada meesha ka dhisan ayaga la tirkooda xaafadii wax ka qabtaan taas waa mid programkan aan keenay kaligiis maana keenin dhalinyarada wareegta laakiin waxaan kala bilownay saddex program oo kaleeto oo dhalinyarada aan u soo korino hadda saddex organization ay ka shaqeeyaan sida Generation Hope oo Cabdiraxmaan asagana nala jooga Cabdiraxmaan wiilka Cabdiraxmaan la dhaho iyo xasanay ay dhahaan oo Somali community ay dhahaan contract ayaa la galnay inay xaafadii tagaan ay baraan dadkii drugs uga joogsamo iyo waxay la deal gareynayaan kaniinigan dhalinyaradu ay cabayso ama cunayso hal dollar buu joogaa balse uga taxadaraa ilmihiina markuu qaato suus overdose noqon oo ay naarkan ay dhahaan ay baraan sida loo badbaadiyo qofkii ay Brian Coyle ku qabtaan meelahan ku qabtaan dhalinyaradaas aad iyo aad bay u dadaaleen programkiina way wadaan waxaana jecelnahay marka garab in lagu siiyo waxa walaalayaal intaan su'aalaha furin ku soo gabagabeynayaa dhibkana haysta mar labaad anagu noo yaala dawladda mar walba qofkii halkaan fadhiya amaanaya fadhiya mas'uul baa afka wareys naga saaran laakiin waxa social-ka ah iyo waxa guryaha ka bilowda iyo waxa community ka bilowda annaga ayaa dhibkan saaray maanta community dhan baa grievance subinaysa African American ah oo officer very pride oo dadku ay jecel yihiin dhinteen maanta dhibkaas dhib xaafadda u yaalo way dhalinyarada Soomaaliyeed walaalaheen waa meeshii waa ku geeriyoodeen inkastoo hadda wax official oo number lahayn laakiin wiilasha la sheegay waa kamid ah dadkeeni baa ku jira marka taas waa mid wax wanaagsan way ka socdaan oo businessadani of course way socdaan guriyaashii waan badidana dadku inaan xaafadii degaan xaafadii nabadgelyo u noqoto sidoo waxay noqotay hadda 9 bilood oo u dambeeyay ka hor waxay noqotay meel aad iyo aad safe u ah oo community safe u ah oo lagu joogo oo community-geena degan ay ilaaliyaan shaqada dadaalka la wadnaa of course arintii Uber iyo Lyft-ga ahayd oo community-geena iyo family-da laga biilo aad baan dadaalka nolosha ag dhignay 2 sano aan ku dadaalinay waana ku guuleysanay marka waxaan jecelahay
inaan cabdiraxmaan cabdifataax Metro Youth hadduu joogo wax yar wiilka waaye programka Metro Youth dhalinyarada meesha mara iyo cabdiraxmaan Generation Hope hadduu joogana asagana halkan inuu soo istaago magacaygu waxaa lahaa Rashaad Axmed waxaan ahay agaasimaha Metro Youth Diversion Center organizationka waxaa waaye dhalinyarada ka shaqeysa xaafadda ee dadka orange ka xirata organizationka oo maamula ama ay ka socdaan marka anaga programka aan wadno waxaa waaye programka siduu u sheegay walaalkii Jamaal ka hortagga rabshada sida oo waqtiyeena xaafadeena rabshada aad ugu badatay 2020 iyo wixii ka dambeeyay iyo intii ka horeysayba marka waxaan sameynay program dhalinyaro xaafadda degan ama dad xaafadda community garanaysa oo la shaqeysa youthka ama dadkii mataqaana xaaladda dhibaatooyinka ama droogada ha noqoto ama rabshada ha noqoto halis ugu jira marka alxamdulillah ilaahay wuu noo go'aansiiyay inaan 3 sano hadda ka shaqeyno hawlo badan baan ka qabanay maxaa la khayraad badan oo xaafadda ka maqnaaba u keenay dhalinyaro badan baa jirtay oo laamiga taagnaan jirtay ama homeless ahaan jirtay oo intaan ka haynay aan children center ama homeless shelters lagu xiray oo hadhowtana dib ugu soo noqday community-gii oo nala shaqeeyay marka waan ku faraxsanahay inaan mataqaana waxaan qaban karno aan u qabanno idinkuna waxa la yidhi maxay kuma maahan it takes a village to raise a child village-kuna waa inaga marka culimadeena ha noqoto mataqaana aabayaasheen hooyooyinkeen iskuuladeena in la soo wada shaqeeyo oo dhalinyarada la badbaadiyo oo wax loo baahan yahay marka wixii tala ah wixii mataqaana kalo advice aan siin kartaan oo waxaan ku imaanay also inaas barano oo ogaataan organizationka yaa ka dambeeya dhalinyaradan yaa ka dambeeya iyo dadka inay shaqeynaya oo hawshan ii haya marka walaalka Cabdiraxmaan baa ku soo dhaweynaya isaguna xoogaa kulmadada haya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتوني عبدالرحمن الدعاء أنا كوري مينيابوليس قيمة سيدة ريفرسايد أوروبا بالعونية والله جنريشن هوب oo ku saabsan dhalinyarada maandooriyaasha isticmaalo balwad lahaa inaan caawino anigana waxaan ahay dhalinyaro oo waxaan ku koray oo balwad lahaan jiray oo alxamdulillah ilaahay ka badbaadiyay 5 sano sanadkii hore waxaa bilownay sidoo dhalinyaradii iyo saaxiibadeygii iyo walaalahaygii dad badan aan garanay oo waxaan ka dhimanayay waxaan furnay urur oo ku saabsan dhalinyaradii oo in loo caawiyo maandooriyaasha maxaana ku bilownay haddana alxamdulillah meelal badan baa dhalinyaro la caawinaa meeshana basekeeni way headquarterskeeni way meeshana Soomaalidii oo ku badan meeshana joogaan meeshana ku baataysan yihiin Soomaaliga aad iyo aad ma fiicno laakiin waxa rajaynayaa insha Allah inaan ifahmaysiin laakiin waa iska ahay dhalinyaro meeshana waa ku koray dadka waxay ku dhibaataysan yihiin waan garanayaa sababtaana sameeyno waxa weeye because dadkii oo waayeeshay waalidiinta qaarkood badankooda dhalinyarada waxay soo marayaan ma fahmi karaan waxaan ku korin dhibaatadaas soo madeen ma marin isku mid dhibaato ma aha soo waxa furnay sababtu waxa weeye inaan dhalinyarada caawino iyo badan dhalinyaro oo meeshan joogo iyo magaalada oo dhan even meelo kale caawino inaan treatment geyno takalena barnaamij badan aan leenahay in marka treatment ka soo baxaan inaan shaqaalaadis la caawino guriyaadisna la sameeyno oo la qayb galano waxay baahan yihiin inaan la caawino markaas hadaa waxa talana siinaysiin waxa weeyaan Soomaaliya nahay inaas wada caawino way inaas ku tiirsano soo kulligeen qof kasta qayb inay shaqada ku qabdaan ma ahan kulligeen soo wada shaqeyn way walaalayaal wax yar baan ku darayaa sheekha intaan u dhiibin su'aalaha furin walaalaheen waa dhalinyaro ismaamulay City Minneapolis ayayna partnership la suubiyeen oo garab siisay xafiiskayga ayaa garab siiyay dad wax qabanaya markaan aragnay community-gi ayaan garab siinay marka kolley intaas aan kusoo gabagabeynaya aad iyo aad u mahadsantahay Jamaal Cusmaan iyo walaalaha kale Cabdifataax iyo walaalka kaleba insha Allah taala aad u mahadsantihiin runtii warbixintu wax badan oo maaragtay qofka ka qarsoonaa ogaada danagu ma ogeyn nimankan odayaasha ah oo dhalinyarada ah oo dharka jaalaha qaba runtii lama socon inaad nimankan dhalinyarada ka dameeyeen waxaan wajigooda garanayo way ragga ninkaa shawliba aad baan garanaysa welin yar ah saayidka iyo gaarkiisa si kastaba ha noqotee xataa waxaan loo ku jiray dadaan shughul nagan kula hayn baa hawshaa wata marka laakiin aad baan ugu faraxsanayn ogaano maanta caawa ogaano walaalaha waxay idin furayaa su-aalaha laakiin waxaan rabaa inaan marka hore su-aalka horumarsado Jamaal Cusmaan khayr Allah tusiyo walaalaha banaankan taagan oo dhalinyarada ah oo horta yani Jamaal waxa doortay dadka meesha bari maca Roma iyo Soomaali
سؤالها أنا كنت أرمض وانسينا إن شاء الله تعالى وحي سؤال قبطان وزوج بنس إن شاء الله تعالى ولا هذا بناك تاعنا دروجي حا استعماله دور قربان سوداني الله هذا الله المساجد كنا سيلو وحي شوية مساجد يقع بسنة ومارتي بعد على مساجد كنا يبان بسنة waxaan ku fikirnay in la helo meel masaajid ka baxsan tii la kireeyo yani lagu martiqaado cunto iyo wax loo dhigo waxyaalaha ku cayaan loo dhigo halka marka laga hadlo maaragtay ila in maaragtay daroogadii ay cunayeen laga daweeyo kaliya waxa ka fiican marka qaarkood in xataa wacdi loogu bedelo si u joojiyaan marka ma laga yaabaa inay city-ga ama barnaamijyadan ku dari karaan meel masaajid ka baxsan loo kireeyo yani barnaamijyo loogu qabto oo lagu tashkiiliyo noocan yarada si dardarooda looga saaro waa mahadsantahay sheekh marka hore meel carruurta lagu xanaaneeyo miskiin kama nino meel bay ku taallaa meenaha waxaa waaye ayagii ma tegayaan ayagii servicekii aada u barbaargaraynaysay miyay accept garaynayaan meelo badan ayaa jirta qofkii ilaahay soo hanuuniya ama qofkii ilaahay drugan ka saaro garab weyn buu ka heli karaa meel walba oo serviceyo badan ayaa jira ilmaha marka qofka halkaa taagan waxa uu u baahan yahay ma aha in la dhaho inakeen ama cuntaa ku siinaya mashaadka soo gala ama nin xun baa tahay bal la fadhiiso la sheekayso 10 daqiiqo bas ilmaa kusoo gaaras asaga marka storygiisa dhageysatid dhalinyaro waxaan aragnay mana aha qofkaan dhalinyaro waxaan aragnay dhakhtariin aabood yihiin oo ku jira meesha homelesska jiifa hooyada aabood waa dhakhtariin very successful laakiin waxay ku jiraan trap waxbaa madaxa ka saaran wax aysan ka bixi karin ayaa madaxa ka saaran marka sheekh su-aashaada sarfisyo badan way jiraan haddeertaana waxaan ku bashaaraynayaa siri minneapolis marka badanaa treatmentiga la aado meelaha dadka lagu dhaqama detoxka ay dhahaan meelo fog baa la aadi jiray hadda meeshaan Taco Bell iyo Cedar Riverside Taco Bell iyo Cedar ku taala oo Taco Bell tii hore ka sokaysa ayaa waxaan ka furi doonaa oo siriga noo diiday neighborhoodkana noo diiday aan la galnay dagaal badan la galnay ayaa waxaan ka furi doonaa 44 bed oo detox ah oo full service ah oo dhalinyaradii markii dhakhtarku asaga ka badiyay knowledge-kiina yaqaan markuu ilmi u taga asaga drug buu siinaya drug la mid u siinaya si u soo degaan hadhowna meeshii uu ku haynaya ilaa 30 beri ka bacdi employment ka bacdi housing ka bacdi waxa ku jira marka ilmaha aad baan ugu bishaaray waxa furmi doonaa July dhakhtar walaalkeen ah dhakhtar Sadiq la dhaho insha Allah intan waan baad galay doonaa oo Mayo Clinic ka yimid he grew up in Cedar Riverside ayaa ka soo baxay isbitaalka ugu weyn America halkan yimid dhalinyarada wax ka qabto 14 sano dadka aan loo ogolaa dagaal baan u galnay code-ka city zoning ayaan conditional permit waxay dhahaan siinay si 44 bed dadkan East African-ka bas ma ahane Native American-kana way la shaqay doonaan marka waxaan ku soo gabagabeynayaa dhalinyaradu markay ku diido ha ka tagin laakiin 10 daqiiqo annaga inta meesha fadhina given 10 minutes storygooda waa arkaysaa noloshooda waa arkaysaa dhalinyaro wax jira lugaha ka baro aan bixi karin laakiin parentigooda Golden Valley buu degan yahay ama baalkii BMW wata ma aha class ma aha income waa addiction-ka teamkayga oo orange-ka xidha in xoog rag ba u badan yihiin waxaan sameynay marka waxaan aragnay dhalinyarada qaarkood marka hooyooyin arkaan hooyooyinka markay arkaan afku dhaweey qaarkood waxaan sameeyaa marka teamka waxaan ku darnay 4 hooyo oo la shaqeeya dhalinyarada oo mataqaana xaafadda marka lagu weenayaa la lugeeya marka waxaan aragnay qaar dhalinyarada kamid ah markay hooyo arkaan in hooyadu soo xasuusanayaan oo hooyadii mataqaana dhageysanayaan talada waqtiga soo qaadanayaan haddii dhahdo hooyo meel cunto ka cunjada ku geeyo ama meel seexatid ama detox center ku geeyo ay qabanayaan waxaa kaloo teamkana ku jira imaam kamid ah culimada masaajidka oo isaga laftigiisa ugu talagalay inuu wacyi gelis badan sameeyo marka waxaan sameynaynaa ka hortagan meelo badan in laga bilaabo oo aabayaasha kasoo qayb galaan oo dhalinyarada kasoo qayb gasho oo masaajidada ka qayb galaan insha Allah si aan u badbaadin ilmaheena